dowladaha Kuuba iyo Kenya ayaa mar kale ka wada hadlay arrimo ku aadan dhaqaatiir sanad ka badan u afduuban dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Wadahadallada ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalka Kuuba Miguel Diaz-Canel uu xiriir dhanka telefoonka la sameeyay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Masar Diaz iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka wada hadlay xaaladda iyo xorriyadda laba dhakhtar oo u dhashay dalka Kuuba. Waxa aan wada hadal telefoon oo miro dhal ah la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta anagoo isweydaarsanay arrimaha dhaqaatiirta iyo qodobo kale ayaa lagu yiri war qoraal oo la dhigay barta Twitter-ka Emmanuel Diaz. Dowladda Kuuba ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii ay u soo badbaadin lahayd dhaqaatiirtaasi oo haatan la sheegay inay haystaan Al-Shabaab ogana faa'iideysanayaan daweynta dagaalyahanadooda ku soo dhaawacma dagaalada ay ka wado dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Asal Hareera iyo Landy Rodriguez oo takhasuskoodu kala yahay qaliinka iyo daweynta ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2019 laga afduubtay duleedka magaalada Mandera waxaana ay dowladda Kenya sheegtay in ay xoog ku soo furan doonto. Dowladaha Soomaaliya iyo Kuuba ayaa dhawaan beeniyay in labada dhakhtar la sii daayay markii warar noocaas ay baahiyeen warbaahinta caalamka.